waxaad tagaysaa meesha border ay ku qoran tahay kadibna waxaad u samaynaysaa asigana mataqaanaa border oo mataqaanaa oo jaallo ah ama hurdi ah. waa tahay asxaabta mar kale isku soo noqod wanaagsan. maanta barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay dad fara badan oo waxaa jira youtuber ah ama gabdho ama wiilal kuwaasi oo soo geliya cashiro muhiim ah youtube-ka isla markaasina oon haysanin dad badan oo daawado. haddii aad samaysid waxyaabaha aan maanta kuu sheegi doono waxaa hubaal ah in uu videogaaga heli doono daawasho aad u fara badan. afartan waxyaabood waxa ay kala yihiin title-ka, description-ka, taggiska iyo thumbnail-ka. maanta muhiimadda ugu weyn aan leenahay waxa ay tahay thumbnail-ka. waxaan idin tusi doonaa qaabka loo suubiyo thumbnail-ka. dad fara badan ma oga waxa uu muhiimadda u leeyahay thumbnail-ka, muhiimadda uu leeyahay taggiska, muhiimadda uu leeyahay description-ka iyo muhiimadda uu leeyahay title-iska. waxaan soo qaadan doonaa marka koowaad thumbnail-ka. thumbnail sidaan hore idinkugu sheegay ama sida hadda idin sheegayaba, thumbnail waa thumb iyo nail, waa laba eray oo la isu geeyay, waa suul iyo cidi. haddii qof kaleeto oo ra'yi ka haya ama mataqaana wax ka duwan oo ku hayana dhanka hoose ee description-ka ama commentiga ayuu nagu reebi karaa. haddii aan faahfaahiyo thumbnail-ka waxa uu yahay, haddii aad rabtid tusaale ahaan in aad aadid badda isla markaasina kalluumaysi aad doonatid, waxaad u baahan tahay inaad haysatid maqaali, taasi afka hore hilib inaad ka gelisid kadibna badda aad ku tuurtid, malaygana ama kalluunkana uu soo aadayo hilibkaas inuu cun isku dayo kadibna aad soo qabanaysid. ama si kale haddaan u dhigo, maqaalida afka hore waxaa lagu xiraa waxyaabo birbirqaayo kalluunka ama malayga oo soo jiito kadibna lagu soo qabto. sidaas la ajligeeda qofka youtuberka ah wuxuu leeyahay maqaali oo wax ku ugaarsado. maanta haddii aad youtube-ka aad gashid waxaad arkaysaa kumanaan video. haddii aad hal magac ku qortid kumanaan video ayaa kuu soo baxayo, mid ayaad ka daawataa ama mid ayaad kala baxdaa. sababta maxay tahay mis weydiisay? sababta waxaad ku qanciyay thumbnail-ka ama sawirka ugu horeeya saaran ayaa ku qanciyay. haddaad fiiriso video walba wuu ka daawasho badan yahay videoga oo ka thumbnail qurux badan yahay wuu ka daawasho badan yahay. xataa taqaan waxyaabaha gudihiisa ku jiro ee hadiisan ahayn xataa wax qanciyo way ka daawasho badan yahay, sababtoo ah kiligta ugu horeysa ayaa la fiiriyaa video. haddii aad videogaaga ka qurxisid thumbnail-ka waxaa hubaal ah in aad daawasho fara badan aad heli doontid. sidaas si la eg haddii aad taggiska haddii aad ka saxdid videogaaga waxaa hubaal ah in uu noqon doontid qofka ugu horeeya ee markii magaciisa la qoro ama mawduuca aad diyaarisa markii la qoro. dad fara badan aad dabcan diyaariyay mawduucaas, marka waxaa noqon doontaa qofka ugu horeeya ee soo koro qaybta ugu koreyso. tusaale ahaan haddii aad mawduuc hore aad u diyaarisay hadda aad dib ugu laabatid youtube-kaaga ama youtube-ka la kasoo geshid kadibna aad ku qortid mawduucaas magaciisa, laga yaabaa inuu noqdo midka 1141 ee hoose oo saa u raadinaysid kadib aad soo heshid. waa kana aad ahayd sideed ku noqon kartaa qofka ugu horeeya ee mataqaanaa markii magaciisa la qoro ama youtube-kiisa la qoro qofka ugu horeeya oo imaanayo. haddii aad videogaaga markii aad diyaarisay mawduuca aad ka saxdid taggiska iyo description-ka iyo title-ka ama magacaaga u bixinaysid, haddii aad ka qorto intii loogu talagalay waxaa hubaal ah in oo videogaaga markii la qoro cashir hebel markii la qoro ama mawduuc hebel la qoro ama title-kiisa la qoro qofka ugu horeeya haddaadan noqonin top 5-ka ama top 10-ka soo galaysaa. taas waa hubaal. kadibna Janice waxaad helaysaa lagugu daawan karo. top 10-kaas ayaa waxay si kala yihiin waliba haddii videogaaga thumbnail-kiisa uu qurux badan yahay 10-kaas ayaa laga dooranaya. haddii ciwaankaaga ama title-ka aad ku qortay haddii uu xun yahayna ama oo mataqaanaa si qaab daran aad u qortayna qofka wuu ka tagi doonaa. laakiin thumbnail qurux badan, title qurux badan oo iswaafaqayo haddii aad u samaysid waxaad noqon doontaa qofka ugu horeeya ee la daawado. taggiska dadka fara badan ee Soomaalida ama youtuberska ah ma qiimeeyaan in ay tags ay u sameeyaan videoashooda. waxay kaleesan qiimeeyeen description-ka in ay ku soo qoraan waxyaabaha ay isticmaaleen ama barnaamijka ay ka hadlayaan waxa ay u isticmaaleen. tusaale ahaan ani videoasheeda marka isticmaalayo ama aan soo geliyo waxaan ku soo qoraa dhanka hoose ee description-ka waxyaabihii aan ku duubay videoga, codka waxyaabihii aan ku duubay, barnaamijyadii aan ku jarjaray, kombiyuutarada aan isticmaalay, haddii application aan sharxayo linkigiisa aan soo dhigaa. intaasba waa information muhiim u ah. youtube-ka haddii aad rabtid in aad lacag aad ka samaysid waxaa muhiim ah ama markii lagu soo furayo oo shirkadda Google ay ku soo aqbalayso dhanka lacagta waxay fiirinayaan algorithm ahaan qaabka aad u samaysid thumbnail-kaaga, title-iskaaga, description-ka iyo tag-ga. haddii halahaas ay soo fiiriyaan oo halahaas ay iswaafaqi waayaan ama ay kala duwan yihiin sida videoyaasha Soomaalida qaarkood title-kooda waa gooni, thumbnail-kooda waa magac gooni, videogan waa gooni, taasi waxay noqon doontaa waxyaabo oo guidelines-ka ama community guide ka soo horjeedo oo mataqaanaa oo lagu ogolaan doonin in lagu soo furo. shirkadda Google-ka ama YouTube-ka waxay ku siin doontaa hal bil oo Janice ah in aad dib iskaga soo saxid thumbnail-iska, title-iska, tag-iska
iyo descriptionka inaad soo waafajid oona noqonin wax oo qofka markuu kusoo raadiyo oo toos loo heli karo inaad noqotid. war badan yaa idinku daalinin. haddii aad rabtid videoga inuu noqdo viewer aad u fara badan oo helo ama oo kor aad u kacdid dhanka daawashada, dhanka subscribe-ka, like-ga iyo wax walba, waxaad mar walba samaysaa in aad iska saxdid title-ka videoga oo u baxayo si qoraal isku wada mid ah aysan noqonin capital letter iyo small letter aadan ku qorin, hal far aad u isticmaashid. kadibna title-ka aad u bixinaysid inuu noqdo title oo ku habboon videogaga. midda labaad, description-kaaga waa inaad kusoo qortaa si oo macnaha daacad ah wixii aad isticmaashay iyo videoga, si dadka ee asxaabtaada ah ay kaaga faa'iidaystaan. saddex, waa in aad samaysaa tagiska. waxaa la dhahaa marka tusaale ahaan ani haddii aan sharxayo KineMaster cashirka aan kaga hadlayo green screen, waxaan ku qorayaa hoose KineMaster, enter ayaan leeyahay haddii computer aan isticmaalayo. haddii aan mobile isticmaalayo waxaan ku qorayaa comma ayaan gelinayaa, kadib space ayaan baxayaa sida loo isticmaalo comma. adiga wax allaale wixii suurtagal ah ee qofka markaas uu ku raadin karo magacaaga ama cashirkaas uu ku raadin karo ama isdhehaysid waa lagu soo qaban karaa, waxaad ku qoraysaa dhanka hoose tagiska ayaad ku qoraysaa. midka ugu dambeysana waa thumbnailska. waa qaybta ugu muhiimsan ee videoga YouTube markaas YouTube soo dhigaysid loo baahan yahay in aad wax ku ugaarsato. haddii thumbnailkaaga uu xun yahay ama uusan qaab lahayn, magac uusan title aadan ama qoraal ku qornayn ama uusan qurux badnayn, waxa aad ka hadlaysid oo meesha iska muuqanin, videoga interest ma yeelan doona ama xiisa ma yeelan doona, qof daawan doontana ma heli doontid. laakiin waxaa muhiim ah in aad videogaga thumbnail qurux badan u samaysid si aad dadka ugu ugaarsid. haddii laakiin thumbnail oo been ah aad u samaysid, dadka dislike ayay ku siin doonaan, maadaama wixii aad thumbnail kasoo dhigtay iyo contentiska oo ku jirto gudaha isku mid ma ahan. marka maanta waxaan rabnaa sidii aad u samaysan lahayd thumbnail qurux badan in aan idin tuso adigoo isticmaalayo teleefankaaga. ila soco ilaa iyo dhamaadka. hore idinku sheegay waxaan rabaa in aan sameeyo thumbnail. tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inaan sharxay shaygan ama camera zoomkan soo jeedin waa Canon waaye 18 to 55 mm. marka ayadan waxaan rabaa marka inaan sawir ka qaado isla markaasina aan tuso qaabka sawirka loo qaado oo thumbnail looga dhigo. halkaas u jeedin waxa igu xiran kameradeeda kale igu xiran, ayadaa rabaa marka in aan ku qaado kamerada. waxaa idin tusayaa marka iyadoo muuqaal ah ayaan tusayaa. okay, meeshan ugu jeedinba shayga aan sawirayo ama aan rabo inaan sawiro waa labadan shay. labadan way kala duwan yihiin. tan looguma talagalin in lagu xiro zoom lensigan, sababtoo zoom lensigan uu ka weyn yahay tan zoomka lama qaadato barnaamijkaas ay leedahay. si u jeedin hadda backgroundka dambe iyo waa la arkaa, labada shay waa la arkaa. kan si fiican looma arkaa, laakiin backgroundka dambe si fiican ayaa loo arkayaa. marka waxaan rabaa backgroundka dambe inaan qariyo oo kuwan aan soo muujiyo. okay, focuska wuxuu ii samaysan yahay manual ayuu ii taagan yahay. marka waxaan sameynayaa marka saa u jeedinba hadda backgroundka dambe waa qorsan yahay. labada shay aan rabo inaan sawirana waxaa loo arkayaa si nadiif ayaa loo arkayaa. oo hadda si nadiif hadda waxaan ka qaadi karaa marka sawir. waxaan sameynayaa click ayaan ku siinayaa, waa sawirayaa. oo ah hadda video sawir ayaan ka qaaday. sawirkaas ayaan waxaan ku sameyn doonaa marka insha Allah thumbnail ka dhigi doonaa. inkastoo hadda sawirka ugu dhibo mataqaana iga fog yahay ama la arkayo darbiga, waxaan sameynayaa oo ku dhawaanayaa xoogaa. okay, saa u jeedin labada shayba mataqaana si fiican ayaa loo arkayaa. ama haddana waa dabagedinaya, waxaan ka dhigayaa magacan si fiican loogu arko. magaca ayaa mataqaana si fiican u sameyn doonaa insha Allah. okay, inay taraaraxdan waa laga yaabaa. okay, saa u jeedin magaca labada magac markaan caadi ayaa loogu jeedaa. zoomkana mataqaana waa u diyaarsan yahay oo macnaha focusku ii saaran yahay. haddana click ayaan ku siinayaa mar kale ayaan ka qaadaa sawir. waxaan filayaa videogan thumbnailka aan ka sameeyo ama thumbnailka aan ka sameeyo inuu noqon doono thumbnail aad u qurux badan. ila soco ilaa dhamaadka. xabta haddii aad u baahantiin inaad samaystiin thumbnail aad u qurux badan kaasi oo aad ku isticmaashid videoyaashaada YouTube, waxaad u baahan tahay inaad isticmaashid application lagu magacaabo PicsArt ama Picture Art. hore ayaad u barateen. kan ayaan ku dhufanayaa, kadibna waxaan ku dhufanayaa calaamadan hoose ee ku darta ayaan ku dhufanayaa. ama waxaan tagi karaa meeshan ay ku qoran tahay all photos ay ku qoran tahay ujeedin ee kore, kaas ayaan ku dhufanayaa. kadibna waxaan dooranayaa saddexdan oo cadcadaanka ah mid ka mid ah waaye sawiradeeda, kaas ayaan ku dhufanayaa midka hore. kadib saa ujeedin videoga ama sawirka uu soo galay. kadib waxaan sameyn doonaa, waxaan dabagedi doonaa shaashada mobilka. saa ujeedin hadda mobilka waa uu isdabagediyey. kadib waxaan sameynayaa, waxaan jarayaa muuqaalkan ama mataqaana waxaan jarayaa kamerada lensigeeda iyo kamerada ayaan jarayaa. kadibna dib ayaan usoo gali doonaa si ay u qurux badnaato. anigu weligaa isticmaalaya hadduu kuu adkaado
haddii aad aragtid way kaleeto oo ka fudud aad ku isticmaali kartid waad isticmaali kartaa. Laakiin aniga muhiimadeedu waxay tahay in aad wax ku fahantid, in ay tahay muhiim in aad haysatid thumbnail aad u qurux badan. Okay, kadib waxaan tagi doonaa meeshan ay ku qoran tahay cut out. Kadibna meeshan ay ii saaran tahay hadda shape-ka uu ii dooran yahay ayuu ii doonaanaya. Kadibna waxaan sawirayaa shape-kan. Soo jeedin. Kadibna shape-ka bis ayuu ii jari doonaa. Haddii aad rabtid inaad ogaatid inuu shape-ka ku jiro in kaleeto, waxaad samaynaysaa calaamadaas falaarta ayaad ku dhufanaysaa. kadib soo jeedid automatic waaye, asiga bisa kuu soo haraayo. Haddii aad rabtid inaad iska tirtid meeshaas, brushka ayaad soo qaadanaysaa, dib iyo celi, zoom yar ayaad soo gelinaysaa. kadib waxaad iska jaraysaa meelahan yarariiska, waxaad iska gaabinaysaa brushka ama tirtiraha. kadibna waxaad tiraysaa meeshan iyo meeshan, derbiga yar ayaa soo kale. soo jeedin. one click aa sameeyey ayaa waxa uu jaray maxaa la isheeg kaameradii dhan iyo wixii background ayuu jaray. Marka aad ayuu muhiim u yahay inaad isticmaashid application-kan ama barnaamijkan wax lagu jiro. Hadda kan waa save gareynayaa, kii kaleet ayaa haddana mataqaanaa soo qaadan doonaa insha Allah. Kan waxaan leeyahay ii save garey. Okay, kaamirada mar kale ay isdabagedisaa u jeediin. kadibna waxaan leeyahay save. siis ayaan ku save gareynayaa oo background iyo waxaas uma sameynaya. mar labaad ayaan waxaan kusoo laabanayaa calaamadda balaaska ah. taleefanka mar kale ayaan dabagedi doonaa insha Allah. Okay, kadibna waxaan galayaa, haddana waxaan ku laabanayaa isla asiga ayaa soo qaadanayaa. mar labaad ayaan dabagedinayaa mobilka. Okay, markaa meeshaan maraya mar labaad waxaan ku laabanayaa cut out. kadibna waxaan sawirayaa kaamirada markaan. soo jeedin. Okay, kadibna waxaan leeyahay calaamad falaarta gees ku dhufo. kadib mobilka kaamirada ayuu ii door soo jeedid. haddii aan mataqaanaa dib u laabto, soo jeedin kaamirada bis ayuu ii dooray. inta hadda ka dhimanna asigana waa iska gaabinayaa mataqaanaa brushka ama tirtiraha. kadibna meelaha uu mataqaanaa wax ka soo gagaareen ayaan ka bixinayaa. Okay, muhiim ah inaad kulli aad ka wada bixisid, laakiin isku day inaad mataqaanaa sida ugu qurux badan aad ku samaysid. Okay, hadda dib ayaan u celinayaa, waa taasaa. kadibna waxaan sameynayaa save ayaan leeyahay. Okay, kadibna calaamadan falaarta ayaan kusii dhufanayaa. taleefanka mar labaad ayuu isdabagediyey. kadibna waxaan leeyahay save. haddana save ayaan sii leeyahay. kadibna dhan ayaan leeyahay. mar labaad waxaan ku laabanayaa calaamadda balaaska. kadib all photos aan tagayaa. kadib waxaan soo qaadanayaa mar kaleeto oo saddexaad. kadibna waa dabagedinayaa mobilka. Okay, meeshaan markay maraysa marka waxaan soo qaadanayaa sawirkii oo mataqaanaa oo ahaa kan oo lensiska aan jaray. kadib waxaan aadayaa meeshaan ay ku qoran tahay images ama add photo. kadib waxaan soo qaadanayaa sawirka footada, add ayaan leeyahay. kadib inta ayaan keenayaa. Okay, waa la ekeysiinaysaa. kadibna waxaa u sameynaysaa border ama mataqaanaa geesaha waxa ugu sameynaysaa waa kana borderka ayaad tegaysaa. kadibna kalarka aad rabtid ayaad ka dooranaysaa oo ah jaalaha indhaha qabanayo, jaalaha ayaan ka dooranayaa. Okay ayaan leeyahay. soo jeedin mataqaanaa wuxuu sameeyey calaamad oo wareeg kii dambe xataa hadduu dhaqaaq ama ka weyn yahay xataa lama arkayo kan hoose. hadda mar labaad waxaan leeyahay marka okay ayaan leeyahay, kaas meeshiisas ku ekeysi. kalarkaas ma bedeli kara hadda kadib. kalarka waa inaa marka koowaad aad ka fikirtaa, hadduu kaa qaldamana dib ayaad mataqaanaa u sixi kartaa. Okay, mar labaad ayaa soo qaadanaya haddana calaamadan. kadib sorry, kan waa iska cancelayaa. cancel ayaan leeyahay, inta ka cancel. Okay, mar labaad waxaan tagayaa add photo. kadib sawirka ayaa soo qaadanaya. kadibna waa la ekeysiinaya asigana. Okay, soo jeedin. Okay, waxaan jeclaa inuu la egyahay. waxba macnaha problem ma lahan hadduu la ekaan waayo xataa. waxaad tagaysaa meesha border ay ku qoran tahay. kadibna waxaad u sameynaysaa asigana mataqaanaa border oo mataqaanaa oo jaallo ah ama hurdi ah. soo jeedin hadda wixii mataqaanaa waxay sameysmeen border ay u sameysmay. marka waad aragtaan videoyaal badan oo mataqaanaa qofka oo border isgeliyey ama caddaan ha ahaado ama kalarkoo raba ahaado. marka hadda waxaan filayaa in aad fahanteen qaabka oo mataqaanaa loo qurxiyo sheyga mataqaanaa
adoo sawirtay in aad mar labaad border aad samaysid. Okay, waxaan sameynayaa markaan waa safe ayaan leeyahay. hadda labadan iyo wax dhan way isku wada dhegan yihiin, ma kala foqayaan. kadib waxaan tagayaa meeshan ay ku qoran tahay draw ama draw. kadib waxaan ku dhufanayaa draw ayaa soo qaadanayaa. sidii hore ood barateen waxaan tagayaa meeshan shapeskay ku qoran tahay. kadib waxaan soo qaadanayaa rectangle ama mataqaanaa afar gees ama mataqaanaa mustadiil meedhaha carabta. Okay, kadibna full ayaan leeyahay. kadibna okay ayaan leeyahay. inta ayaan ku dhufanayaa, kalarka ayaa iska bedelayaa. kalarka mid oo ifayo oo isha qabanayo ayaa mataqaanaa aan ku dhufanayaa. kadibna waa sawirayaa. hadda way isku eg yihiin mataqaanaa kalarka. waxaan dooranayaa gaduud ama maxaa la dhahay kalarka oo ma aqaan kalarkaad wuxuu ahaa gaduud ama okay yaa idinku daalin. sawirka gadaal ayaan u sikin doonaa. okay, kadib waxaan sameynayaa inta ayaan saas leeyahay qoraalka. macnaha muhiimadii ka leeyahay waxay tahay in oo qoraalkaaga la akhrin karo. laakiin hadda cadaankaas aan ku dhex qoro qoraal caadi ah, qof akhrin karo ma lahan. wuxuu noqonayaa mid qash ah macnaha ama mataqaana la akhrin karin. haddaa meeshaas kor aan ku qoro cagaarkan ama greenka aan ku dhex qoro lama akhrin karo. laakiin haddii aad border u samaysid ama background u samaysid qoraalkaaga, qoraal qurux badan ayuu noqon doonaa. marka waxaa sameynaa marka hadda u baahanahay mid kale taxag soo gashi karaa. laakiin waxaa intusaa si raf ah ama mataqaanaa si boobsiis ah waaye. adigaa marka noocaa ka dhigin kartid iyo meesha qoraalkaaga ku qori kartid adaa samaysaysa. laakiin muhiimaddu waxay tahay qoraalkaaga waa in uu yeeshtaa background dambe ama gadaal dambe inuu ka yeeshto background uu ka yeeshto. okay, yaa warka idinku daalin. waxaa sameyn doonaa hadda marka okay ayaan leeyahay. meeshaas ayaan ku dhufanaya dhan ayaan leeyahay. kalarka aad soo qaadan kartaa. muhiim ahan cadaanka keliya, muhiimka aan jaalahan oo mataqaana ama hurdiga aan geliyay geesaha borderka uga dhigay. adig kalarka soo kugu qurux badan yahay iyo farta kalarka oo qadda iyo mataqaanaa qoraalka aad isticmaalaysid iyo borderkan aad isticmaalaysid oo backgroundka u dhigtay in ay mataqaanaa isku soo muuqanayaan. okay, meesha qoraalka ayaan tagi doonaa insha Allah si oo orod ah. okay, qoraalka ayaan raadinaya. text waa kana. kadib waxaan ku qorayaa marka waxaan ka dhigayaa weyn ka dhigayaa thumbnail waa kaas oo qoran yahay. kadibna waxaan leeyahay dhan. okay, kadib waxaan sii leeyahay okay. soo jeedin waxaa soo baxay inta geeskan oo mataqaana gacanteeda midigta oo gees waxa ka soo baxay fartii oo mataqaana qaabka loo isticmaali lahaa. okay, hadda marka cadaan uu taagan yahay, cadaankan ka bedelayaa. waxaan ka dhigayaa maadaama gaduud ah haysto madow ayaan ka dhigayaa. maadaama oo farteedii ay mataqaana nooc kale ee tahay xariiqantaas si fiican loo arkaynin, inta ayaan tagi doonaa. kadibna waxaan iska yareynayaa macnaha ii sheeg kalarka weliba mataqaanaa gaduudka ama mataqaanaa midabkan oo casaanka ah lagama dhex arkaayo soo maa. okay, waxaan sameyn doonaa marka kan ayaan dooranayaa. kadib waxaan bedelayaa, waxaan ka dhigayaa kalar la arkaayo ama isha soo qabanayo si qofka markuu soo galaba videoga ugu hore oo arko inuu noqdo oo ishiisa ay ku dhacdo. okay, cadaankan fiirinayaa. okay, kadib waa sii weyneynayaa. muhiim ma ahan kalarka hoosa mataqaanaa adiga iyo farta inay isbaastagareynayaan ama mataqaana isqaadanayaan aa muhiim ah. okay, meeshan wax walbaa kasii bedeli kartaa. farta daarta inaad iska bedeshid inta ayaa iskaga bedeli kartaa. haddii aad rabtid mataqaana inaad oo stroke u yeeshid ama background oo mataqaana dhaxada inaad u samaysid tagtiidana ku dhufanaysaa. haddii aad rabtid inaad iska gaabiso opacity intaa ka gaabinaysaa isdhexgelisa farta iyo baalkii. haddii aad rabtid blend mode inaad ka dhigtid oo dhex gala meeshan multi ayaa leeyahay ujeedid. waxaasoo dhan mataqaana meeshan ayaa ka dooran kartaa. haddii farta mataqaana shadow inaad u samaysid artid ama kii aad ka dhigtid saas ayaa sameyn kartaa. saa ujeed hadda aad ayuu qurux badan yahay. kalarka waxaan sameynayaa marka madow ayaa waxaan uga dhigayaa baalkii. markaas waxaan leeyahay color. okay, marka aad ayuu hadda u qurux badan yahay. haddii aan ku dhufto kalarkayga ama mataqaana aan sii save gareeyo wuxuu noqonayaa thumbnail aad u qurux badan. haddaa rabo meeshaas kale qoraalka hadduu badan yahay ama magacyada aan rabo inaan u sameeyo inta ayaan ii banaan ayaa ku qori karaa. haddaa rabo inta waxaan ugu qori karaa dhardhar ugu qori karaa. waxaan filayaa inaad mataqaanaa fahantiin sida loo suubiyo thumbnailka aad ku qurux badan. kan waa filayaa inuu qof dad fara badan u qurux badnayn, laakiin mid kasii qurux badan inaad samayso doonto ayaan jeclahay oo mataqaanaa oo ku anfacayo. kadibna videoyaashaada ay noqon doonaan videoyaal dadka soo jiito qurux badan
click lagu siino hore laga daawanayo marka waxaa idin rajeynayaa insha allah youtube horumar leh 100%. haddii aad ku cusub tahay janaalka subscribe noo saar, like noo dheh, share noo dheh asxaabtaada u baahi qabto, dhanka hoose commentiga noogu reeb haddii aad wax ka faa'iiday. haddii aad hore noola joogtayna commentiga wanaagsana ee hore aan soo bixi jirtay ayaan kaa sugaynaa dhanka hoose ee commentiga. like iyo share noogu dar insha allah. aad ay u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sing that shit.